بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا لهيجا الصوماليات ميلا جوجتنبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن أبوك عوالة كسولو هذا برتيدا يوتيوبك عاوة إن waxaan isku dayayaa insha Allah inaan raab abgareeyo ama dhamaystiro sheekadii qarniga oo inoo socotay runtii dad badan kamid ah walaalihii hore qaybihii hore u daawaday ayaa fariimo ii soo qoray yiri sheekadaas naga dhamee waxaanu joognay haddaan dib idiin xasuusiyo xukunkii maxkamadda oo dhacay walaalkii Soomaaliyeed oo live lagu xukumay xilligaasi waxay ahayd 2017 haddaan qaldan 16 dhamaadkiisii bay ahayd wixii ka dambeeyay ninkaasi 16 years oo xabsiya uu ku jiray Finland ama cadaalad ama sharciyada wadamadan reer Yurub qofku marka xabsi life la geliyo America oo kale way ka duwan tahay life means life waliba America waxaan ba arkaa mararka qaarkood dibiyada crimeska marka daawatid qof lagu xukumay 3 life sentence 300 sano xabsiga lagu xukumay leeyahay iyadoo la garan karo qofka bini aadanka cimrigiisu raag inta uu noolaan karo laakiin European-ku way ka duwan yihiin qofka life sentence hadii lagu xukumo Scandinavia oo kale hadda Finland oo kale xilligaas waa 18 to 16 years qofka marka la xukumo waxa daba socda qolo la yiraahdo probation services marka hore straight away qoladaasi xaq uma u lahaba waa inuu ugu yaraan half of the sentence waxa lagu xukumay barkeed waa inuu safe gareeyaa waana in laga arkaa hab dhaqan ka duwan wixii lagu xukumay iyo inuu remorse sameeyo ama ka shalay uu runtii qirtay inuu wax dambi nin galay yahay oo uu ka xun yahay markaas hadee ay dhacdo baa waxa loo refer gareeyaa markaas in fursad la siiyo kale inta uu nool yahay wala inuu qofkaas isbedelo haddii laakiin loo arko inuu bulshada wali khatar ku yahay inuu wali u sii indha cadaynayo falalkii uu galay noocyadoodii kaba soo qaad xabsiga asagoo ku jira hadduu cajalado ama videoyo ama muuqaalo noocaas uu wali interest ku yahay wali waxyaalo sheekooyinka noocaas uu involve ku yahay waxa la oran karaa kan hadii xarga laga sii daayo wali khatartiiba maskaxdiisa ku jirta wali wixii buu ku gariiraya marka wiilka Soomaaliga haddaan u soo noqono horta anigu waan ka soo guuray Finland wixii ka dambeeyay Ingiriiska u soo guuray laakiin sida aan xogta ku hayo waan follow up gareeyay sheekadiisa 16 sano inta la gaarinba waa la soo daayay probation service-kaas soo daayay period of time baa lagu soo daayay magaalada waliba asagoo la monitor gareynay probation service marka waxay sameeyaan halfway house waxa la dhahaa jirta America xataa way isticmaashaa European-ka halfway waa guri xabsigiina ka sokeeyo bulshadiina aan gaarin waa guri aad qol ku leedahay laakiin qolkaas xilliga laga rabo go'aan inaad soo xarootid xilli go'aan laga rabo inaad ka maqnaan meesha aad jirto rabo in la og yahay waxa lagu sameyn karaa lugta in katiinad lagaaga xiro oo la monitor gareeyo area-da aad jirtid waxa la sameyn karaa xilligaas on time kaas dad meeshaas lagu talagalay oo safe house ka imaan weysid ama halfway house ka ah aqalka dhexdhexaadka ah dad imaan weydid in lagu soo raadiyo lagu loo xageebaad jirtay marka monitoring kaas ama ilku hayntaas way sameeyaan wiilka Soomaaliga marka sida aan sheekada ku maqlay halfway house kaas lagu soo daayay laakiin intii la soo daayay buu haddana gabar kale oo yar buu farxiyay kadib xabsi baa lagu celiyay Finland waxay go'aansatay inay ninkan wadan ka saarto now according sida sharciga adduunka uu qabo sida sharciga qaxootiga uu qabo ninkan waxa loo accept gareeyay inuu qaxooti yahay oo naftiisa khatar ku jirto in Finland markii ay la saxiixanaysay
United Nationka oo kale sharciga qaxootiga adduunka markay saxiixaysay waxay saxiixday inay qaabili doonto qof walbo naftiisu khatar ku jirto. ma aysan oran Finland ma aysan oran aan ka ahayn midkii wax naga kufsada, midkii wax naga dila, midkii wax naga xada, midkii tuug noqda, midkii alkulisto noqda, maysan oran. Unconditional qofkaas xaaladiisa iyo dabeecadiisa iyo noocu raba ha ahaado, qofkaasi waxaan qaabilnay inaan qaxootinimo u qaado, waana u qaateen. Now laba mas'ala meesha taala oo ah number 1 qofkii aad qaadateen hadduu idinku xumaaday meeqa successful ah oo society-ga Finland wax ku soo kordhisay oo taxpayer ah oo wadanka nabad ku nool. xabadii xumaata sida aad ula tacaashaan oo aad u daaweysaan oo boogahooda u dhaydaan dadka kale finishka ba xaq loogu lahaa inay u dhayaan ninkaas, inay la tacaalaan, inay mental health expert u keenaan, inay psychologist u keenaan, in maskaxdiisa waxaan laga dhaqo, in rehabilitation iyo daweyn iyo la tacaalid iyo yani Finland way haysataa cilmigii bay haysataa, resource-kii iyo dhaqaalihii bay haysataa, mechanism-kii iyo toolskii waxaan ka wadaa farsamadii iyo hubkii lagula dagaalamay iyo hay-adihii wax walba way leedahay. laakiin Finland inay dhahdo maya Soomaaliya ku celinayna, Finland waxay godob ka gashaan anigu aaminsanahay caruurta Soomaaliyeed. caruurta Soomaaliyeed waa caruur bini aadan ah. haddii ay Finland qirtay nin kale khatar inuu ku yahay caruurta, maxaa loogu sii daayay marka caruur aan detectives fiican lahayn, DNA iyo evidence gathering aan lahayn? Allahu yaclam. ilaahay qofka bini aadanka uu soo hanuunin karaa, mana rabo inaan ku dambaabo xaaladiisa ma ogi, laakiin sidii uu ahaan jiray hadduu yahay Allahu yaclam inta caruur Soomaaliyeed oo uu farxumeeyey ama dilay Allah og. marka ninkaasi halkaas ku dambeeyey Soomaaliya jira meel uu ka jira ma aqaan. sheekadaas moral lesson ka runtii aan isleeyahay waan u soo qaatay inaan ka barano. horta aniga intii aan ku dhex jiray aan turjumaanka ka ahayd waxaan ahaa zib finishka waxaa lagu yiraahdaa salabida velvelusus, waajibaad isaaran aniga inaanan waxaas aan maxkamadda iyo kiis ka maqlay ana ka hadli karin bay ahayd. laakiin hadda waxaan xaq u leeyahay inaan xataa buug ka qoro, waana ka fikiray runtii and stillna waa on my mind inaan arrintaas buug ka qoro. waxaan isleeyahay runtii in la iftiimiyo waxyaalahan karaamyada noocaana reer galbeedkan ku aragnaa. waa in la isweydiiyaa dalkeennu ma leeyahay niman caruurta farxumeeya. weliba hadda xilligan Soomaaliya banaanka usoo baxbaxayaan dhowr kiisoo qof baan aragnay ilmo yar, hadda ilmo yar oo 5 jira farxumeeyey. marka sidee baa looga hortegi karaa? sidee baa waxaan islahaa aan runtii aan isleeyahay wacyigelin ahaan haddii sheekadan loo qaato inay waalidiintu ay isha ku hayaan caruurtooda waa laga baran karaa. Soomaaliya laftigeeduna inay ogaato rag waaweyn sida muuqaalkooda u yahay maskaxdooda uma wada shaqaysto. dadka cidol baa ku jira, dad xanuunsan baa ku jira. marka in taxadar aadan loo sameeyo ayaan isleeyahay sheekadaas baa laga baran karay. anigana relief bay ii ahayd, muddadaas dheer kama hadli karin, laakiin hadda waan ka hadli karaa. experience-gayga iyo wixii aan goobjoog u ahayna bulshada waa la wadaagi karaa. midda kale oo laga baran karay runtii waxay ahayd and I hope inaad ka barateen wax ka fahanteen. kolay aniga laftigayga waxay ahayd learning process weyn bay ahayd. legal systemka sida uu u shaqeeyo, sida la isu challenge gareeyo, sida ay labada lawyer u kala difaacayaan dhibanaha iyo eedeysanaha hagar la'aanta ah oo runtii loogu hagar baxay ninkaas Soomaaliyeed oo dambigaas lagu xukumay. haddana markii maxkamadda la joogay runtii good lawyer buu haystay, si hufan baana loo difaacay. marka runtii wax badan baan ka bartay how legal systemku u shaqeeyo. idinkana waxaan ka rajeynayaa inaad wax badan ka barateen sheekadaasi. marka sheekada qarniga aan u bixinay
oo ninkii Finland ku dilay gabadhii Tuula Ikenan halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin oogay waxaad kaloo filayseen runtii bala kale oo sii dhacday Soomaaliya wax kale ka sameeyay laakiin kuma dambaabi karo kama warqabo runtii waxaan isku dayay inaan raadiyo xataa aan identify gareeyo xilliga uu magaalada Muqdisho ka degay Muqdisho laga dejiyay iyo in ay Finland ay xataa bixisay safe house ama meel la geyn karo oo lagu hayn karo inay dawladdu u sheegtay ninkan waa soo celinay laakiin intaasoo ciladood baan ku aragnay arrimahaasaan xogtooda raadiyay laakiin waxba kama helin sheekadaasna intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waa inuu mar kale iyo sheeko kale insha allah. Assalaamu calaykum.